السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت شرفت بدن كحران شانل كان أحمد شيل أوفيشال وإذن سلامة ولا الله غالي أدوكم يلبا كجوتين وحني لا إذن كبرنا يا حمر داري عافمات كنا هذا فرحت هذا وفرح سنة جايز إن إن شاء الله وانا فيديو كله أو خروج بدن هايلو إنه ودعيسد ولا الكاج حنوسن إنه إلى عافمات سيو كان عافمات خون إنه إلى وزايديو إن جايز فيديو كان مسيد أنا هدي إلى كرال نخو وحن روا أنت إن أوجو ما دهليو ضدك كحران شانل كان أو فيديو هذا قدام بي oo aan ugu hadlayo waalidiinta runaantii soo diray message qurux badan oo aad u fara badan oo aad dhiirigelin badan aan kala kulmay soo aad u maasantiin guys video-gan sababta uu soo duwayo waxay tahay in idin maad celiyo waxa kala rabaa guys in ugu faa'iideysto video-gan maxaa la dhihi lahaa hal su'aal oo ayadana isdhahayo waa muhiim oo aan isdhahayo way fiican tahay oo la wadaag faniska kugu xiran su'aashaas wax kala ma ahan guys qof faniska ku xiran ama maxaa la dhihi lahaa oo mar walbaba macnaa anagan jecel inaan macnaa walaalaheena la wadaagno waxyaalaha aadka u quruxda badan waxyaalaha oo ay dadka wax ka fahmi karaan dhiirigelinta u ah aan soo weydiiyay asna su'aashaas runtii ayada u qurux badan tahay waxaan rabaa inaan ku soo dhaxdaro video-gan aan ugu faa'iideysto su'aashaasna wax kale ma ahan guys qofkaas wuxuu soo weydiiyay hal su'aal oo aad u qurux badan dabcan inay is weydiinaysid isdhaysid maxay tahay su'aashaas ana halkan kaaga sheegayo su'aashaas wax kale ma ahan guys qofkaas wuxuu soo weydiiyay wuxuu idhahay qofkaas maxay kula tahay ama aragtidaada aad u qaadan kartaa fikradaha oo markaas adiga macnaa aan kugu soo kordhinaynin wax macnaa oo horumar ah ama fikradaha anyway hadin ku soo koobo fikradaha ku niijibinayo maxaa ka aaminsan tahay runaantii aniga waxaan dhahayaa fikradaha ku niijibinayo waxa u baahan tahay ina markaas maxnaa si aad maxnaa oo wanaagsan si ku dheexan maxaa la dhihi lahaa aqli si ku dheexan maxaa la dhihi lahaa maxaa la way aragnimo ina ugu gudubtid hadalkaas waxa uu la jeedaa fikradaha ku niijibinayo mar walbaba maxnaa adiga noloshaada u nooshahay waxa ay dadka kale ku maleysanayaan ama wax dadka kale ay ka sheegayaan ama wax dadka kale ay ku dhahayaan qofkan ma sameyn karo dabcan waxa soo dhan markii la isku soo duubo waxay kamid tahay fikradaha dadka kale marka mar walbana waxaan dhahayaa ha u istaajinin insha Allah waa guuleysanaysaa fikradaha dadka kale hadii aad ku shaqeyso dabcan waxa laga yaabaa personality-gaaga inaad lose gareyso qofka adiga aad tahay inaad lose gareysid ama aad dhumisid soo si aadan ku dhuminin qofka adiga aad tahay si aad u naqatid qofka adiga tahay soo waxa ku khasban tahay fikradahaaga in macna markaas aad isticmaasho si aad guulo badan u soo hoyso si aad wax badan u qabsato way dhici kartaa qofka binaadinka inuu qof la tashto qof tashi uu weydiiyo oo dhaho macna markaas waxaan sidee kula muuqdaan hadii aad qof la tashato daas macnaheeda ma ahan in macna markaas aad liidato balse ogow hadii aad qof la tashato xataa go'aanka fikirkaaga ugu dambeey qofka qaadanayo ama ku dhaqaaqayo waa adiga soo marka waxa u baahan tahay in aad qof la tashato waliba qofka ay is leedahay wad ka faa'iideysaa wax aad u wanaagsan ay is leedahay fikirkan aad adiga qabto fikir kale ku qurux badan oo ku siinaa soo qofkaas marka la tashato aad fikir la qaadato dabcan aadna sameey wixii markaas naftaada ay ku farto oo wanaagsan iska ilaali isla weynada iska ilaali maxaa la dhihi lahaa xumaanta iska ilaali inaad macnaa dadka si xun la dhaqanto dabcan adoona dad wax u dhimeen isku day inaad sameyso wax walba wanaagsan markaan ku dhahayna mar walba go'aanka aad iska leh kama wadi dadka kama wadi dadka ignore gadeen mar walba waxaan ka wadaa dadaalka adiga sameey maxaa yeelay qofka mowqifka leh waa adiga qofka rajada leh waa adiga qofka guulaha rabo inuu gaaro waa adiga dabcan dadkana ma ka sugaysid inay isku fikir noqdaan qof haduu ku dhiirigeliyo dabcan qofka kale waxa ka sugaysaa inuu ku niijawiyo soo si aadan u niijawin oo mar walba aad hore ugu socoto maxaa la ilaa mowqifkaaga ama go'aamahaaga ama guulahaaga aad ka dhawaajisid waxa u baahan tahay dulqaad badan dhabar adeeg badan sawir badan wax walba loo samro waa la gaaraa ugu dambeyn natiijadooda insha Allah ilaahay la kaasho sawirkana bade marka aad ma sintiin guys inta video-gan daawanayso waxaan idin dhahayaa maalin wanaagsan ama haween wanaagsan waxay ku tahay insha Allah guys u ducee walaalaha xanuunsan si ilaahay caafimaad u siiyo kuwa caafimaad qaba ilaahay inuu zaa'idiyo intan video-gan video lamid ay ku kulmeyno ha ka ilowin channelka inaad subscribe gareyso share gareyso like gareyso si dadka wanaagsan oo sidoo kale u qurux badan ay ugu soo mid noqdaan faniskeena ku xiran channelkan see you another video guys.